ciidamada Itoobiya ayaa waxa ay soo galeen Soomaaliya dabayaaqadii sanadii 2006 magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaas oo fariisin ku meel gaar ah u ahayd dawladii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed si ay u ilaaliyaan ammaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo baqdin xoogan ka qabtay golihii maxkamadaha Islaamka oo xilligaasi gacanta ku hayay inta badan gobolada koonfurta Soomaaliya. ciidamada Itoobiya ee soo galay gudaha Soomaaliya qaybo kamid ah ayaa gobolada Soomaaliya waxa ay dagaalo lagu riiqmay ku dhexmareen golihii maxkamadaha Islaamka qaybo kamid ah gobolada Soomaaliya sida Idaale, Daynunay, magaalada Beledweyne, Bandiiradley oo ka kala tirsan gobolada Bay iyo Bakool, Hiiraan iyo Mudug. dagaaladani oo soconayay toddobaad ayaa waxa lagu jabiyay maxkamadihii Islaamka taa oo u sahashay ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda ku meel gaarka ah inay u soo dhaqaaqaan magaalada Muqdisho oo ahayd fariisinkii ugu weynaa ee maxkamadaha. hogaankii ugu sareeyay maxkamadaha ee xilligaasi ayaa ku dhawaaqay inay bedeleen xeelada dagaalka hubkan ay ku wareejiyeen beelihii ay hore uga qaadeen. soo gelitaankii ciidamada Itoobiya dawladii madaxweyne Yuusuf ee magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu soo dhaweeyay weeraro ku dhifo oo ka dhaqaaq ah oo ay kala kulmeen xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho kooxihii muqaawamada ahaa, balse waxay arrintu sii cakirantay kadib markii ciidamada Itoobiya ay isku dayeen inay isku fidiyaan magaalada waxaana lagala hor yimid dagaalo aad u qaraar oo saameyn ku yeeshay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir. dagaaladani oo ahaa kuwa aad u qaraar ayaa waxa ka dhashay dhimasho, dhaawac, burbur iyo barakac kii ugu xooganaa ee soo mara Muqdisho iyadoo qulqulka dadka naftooda kala baxsanaya madaafiicda la isku weedaarsanayay. xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho ay u kala jiheysteen jidadka waqooyi iyo koonfur uga kala baxa Muqdisho, inkastoo ciidamada Itoobiya iyo kuwii dawladii ku meel gaarka ahayd ee xilligaasi ay haddana dib ula wareegeen inta badan magaalada Muqdisho, gaar ahaan fariisimo waaweyn ee ku yaala magaalada. horaantii bishii January ee sanadii 2009 ayay ciidamada Itoobiya isaga bixeen Soomaaliya kadib markii wada hadal dhex maray xukuumadii Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde iyo isbahaysigii dib u xureynta Soomaaliya oo warkacayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo iminka ah madaxweynaha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya. isku soo wada duubo ciidamada Itoobiya ayaa mar kale dib ugu soo laabtay gobolada bartamaha Soomaaliya, inkastoo afayeen u hadla ciidamada wadanka Itoobiya oo dafiray in ciidamadoodu soo galeen gudaha wadanka Soomaaliya walow dad goobjoogayaal ah oo ku sugan gobolada dhexe iyo Hiiraan ay xaqiijinayaan in cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya ay soo galeen deegaano ka tirsan bartamaha Soomaaliya. 25 November kulan ay isugu yimaadeen magaalada Addis Ababa madaxda urur goboleedka IGAD ayaa waxay ka codsadeen dawladda wadanka Itoobiya inay u soo dirto cutubyo ka tirsan ciidamadeeda gudaha wadanka Soomaaliya si ay uga qayb noqdaan dagaalada looga soo horjeedo xarakada Al-Shabaab ee ka soconaya iminka gudaha wadanka Soomaaliya. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Cape Town.